waabaa nin iyo xaaskiisa oo la oran jiray qarad quule waxay la degnaayeen gabadha reerkooda. maalin maalmaha ka mid ah ayuu ninkii wuxuu dhaan u kaxeeyey ceel aad u fog si uu biyuhu u soo dhaamiyo. ceelka markuu yimid wuxuu ugu yimid nin ceelka joogay oo dhar qurux badan xiran. kadib waa la iswareystay, nin walba wuxuu sheegay halkuu ka yimid iyo meesha uu degan yahay. ninkii ceelka loogu yimid ayaa yidhi, war aynu legdanno, keeni la legda ayaa biyaha inoo wada dhaaminaya, haddii kale ceelka biyo ka dhaansan maysid. ninkii intuu la yaabay talada ninka soo jeedshay ayuu ugu dambeyntii ka yeelay. wuxuuna ugu jawaabay, haddii legdan kaa hayso maanta waxaad ka heshaad leedahay. ninkii fikradda soo jeediyey wuxuu ahaa qorismaris bahal ah. qoriga intuu ismariyey ayuu bahal noqday, isla markii baa legtay oo cunay ninkii geesiga ahaa hilibkiisii. wuxuu isku ekeysiiyey ninkuu cunay muuqaalkiisii. dharkiisii intuu gashaday ayuu oorkii intuu dhaanshay u kaxeeyey